بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي هاي عبد الرزاق آدم عثمان. waxaan dadka ka soo baxay kusoo takhasustay waaxda Human Resource Management and Leadership waaxda shaqada iyo shaqaalaha waxaan ka soo bartay Ethiopia waxaan master waxaan ahay bara sare oo jaamacadda ka dhigay waaxdan waa qayb kamid ah qaybaha business administration ka waxaana khusaysaa sidii loo maamuli lahaa shaqaalaha iyo shaqada horsocodka habsocodka shaqaalaha iyo shaqada kulliyadan waa kulliyad wadanka ku cusub muddo ilaa dhowr sano ka bilaabatay laakiin baahi badan loo qabo waxa jirta kulliyadan waxa looga baahan yahay haday noqoto meelo dawladeed oo laga shaqeeyo saxafisyada dawladda haday noqoto meelaha private ka laga shaqeeyo haday noqoto meelaha dadku ay wada leeyihiin shareholders ka lagu leeyahay meel kasta waxa laga baahan yahay qof u qaabilsan waaxda Human Resource Management and Leadership Human Resource Management ka qaabilsan waaxda shaqada marka dabagala horu socodsiya maamula isku dubarida hawlaha shaqada iyo shaqaalaha Human Resource waxa weeyaan shaqada la qabto waxa weeyaan tusaalahan in la qorsheeyo shaqaalihii company-ga galayay waxa company-gu baahan yahay ma shaqaale dheeriya jooga shaqaalaha ugu ku yaryihiin meesha ayaa jira waxa weeyaan waaxda hogaamisa shaqaaleysiinta in la helo qof shaqadii ku haboon shaqadii qaban kara aqoon iyo karti u leh waaxda qofkii isbarta qofkii cusba company-ga barta dadkii barta soo shaqadii markii uu la qabsado waaxda qofkii qiimeysa ee inuu shaqadii loogu talagalay si uu uga soo baxay marka facilitate karaysa isku xidha in shaqada uu qofku qabanayo uu gaari heerkii loogu talagalay sidii markii hore lagu heshiiyay job description-nada wixii uu qofku qabanayo saxaxay iyo wixii markuu sanadku dhamaaday uu qabtay ayaa lagu qiimeynaya taa uu saxaxay wadeed waaxda qorsheysa tababarada iyo horumarinta shaqaalaha waaxda samaysa isku xidhka shaqaalaha tusaalahan konfligooda cabashooyinkooda anshax marintooda digniinahooda waxaas oo waaxda diyaarisa waaxda qiimaysa shaqaalaha waaxda soo diyaarisa mushaharooyinka gunooyinka waxyaabaha shaqaaluhu leeyahay waaxda eegta ee saadaalisa wixii benefit ama allowance waxa la yiraahdo qofka mushaharka aan ahayn dheeraadku qofku heli karo company-ga bixin karo waaxda eegta waaxda la sharci Human Resource ku leeyahay sharcigaana markaa ku shaqeyso qof kastana sharcigaas wuxuu qorayo raacda haddaan markaa waaxda Human Resource ku sharci lahayn waxa adkaatay in shaqadeedu sugnaato waxa kale waxyaabaha ka shaqeysa waxa weeyaan inay wadanka kor u qaado dadka skill-kooda iyo xirfadooda oo soo sheegto intee leego skill baan haysanaa maxay naga maqan maxaynu u baahanahay in kobcino si marka dadkii wadanka u dhashay uga faa'iideystaan khibradaha wadanka yaala si loo qiimeeyo kala tusaalaha intaas oo khibrad anaga qabsan karo uma baahnin dad jaaniba intaas oo kale laakiin khibradda aqoonta leh ee ilaa intaas oo sanadood qofka ku soo takhasusay ma hayna wali waxaan u baahanay dad kale oo jaaniba marka si ay u hagaan jaanibku meel ku shaqeyn karo iyo meelaha wadanka dadkii u dhashay ka shaqeyn karaan waaxdan badanka wadanka Soomaaliland wadankeena waxa laga bartaa 3 sano waana jirtaa oo 3 sano qofku wuxuu dhiganaa semester kala duwan aakhirkan wuxuu diyaarinayaa buuggii ku qalin jabinayay dadka loo baahay dhigan kara waxa weeyaan qof kasta oo secondary-ga Soomaaliland ka soo baxay heerkii lagu talagalay soo gaaray soo qalin jabiyay kulliyadan waxa uu jirtaa inay kor u qaado oo soo saarto dad badan oo qualified professional oo aqoontooda aad u dhisan tahay oo maamula habdha horsocodka shaqooyinka iyo shaqaalaha ee xafiisyada dhanka dawladda iyo dhanka private ka bahaato dhanka hay'adaha intuba waxa imika xoog ugu dheereeya xoog u qaata waxa weeyaan hay'adaha ayaa Human Resource leh imika soo kale waxa bilaabay business-kii private-kii oo xoog bilaabay hadda xafiisyada Human Resource samaystay dawladana xoog imika way soo bilaabeen iyaga laftirkoodu oo process-kii way wadaan waxaan oran karnaa qofka fursadaha shaqo heli karo dhinacyada kala duwan oo dhan qofka heli kara shaqooyinka kala duwan oo heli kara waxa leedahay waaxdana qof Human Resource astana qof Human Resource officer qof Human Resource manager qof Human Resource coordinator marka qof waxa ku xidhay company-ga balaadkiisa uu leeyahay company-gu aad balaaran yahay
saddexda position waa laga heli karaa haddii kala mid baa laga heli karaa shahaadooyin uu qaadan karo human resource-ka waxa hadda soo far ugu muhiimsan waxa weeyaan digriga 3 sano ku baxa qofku markuu digriga dhameeyo wuxuu sii diyaarin karaa hadduu doono human resource wuxuu sii diyaarin karaa strategic management wuxuu diyaarin karaa kulliyadaha kale ee business administration-ka tusaalaha leadership-ka wuxuu ku diyaarin karaa wuxuu ku diyaarin karaa development studies waxa jira dalad guud oo la yiraahdo social science oo hoos yimaadaan human resource-ka accounting-ka management-ga business administration-ka kuwaas oo dhan koodoona ayuu qofku gali karaa ay dooqiisa u jecel marka markuu qofku wax galayo waxbarasho bilaabay looma bilaabo saaxiibkay waxaas u dhigtaa laakiin waxa la bilaabo wuxuu hobigaaga wixii suuqa ka soconaya suuqa shaqo ka heli kartid maxaa yeelay wadankeena markasta waa muhiim waxa soo barata inuu mar kastaba uu ahaado mid ku xiran suuqa haddaan suuqa market ka lahayn de waxa wax noqonaya wax farista markastana waxa muhiim ah inaad aqoontaada kobcisid eegtid markaad dhamaysid kadib maaha digriga oo kale lagu joojiyo wala sii wadaa marka human resource degree uu leeyahay master uu leeyahay PhD uu leeyahay waxaana ugu caansan oo imika loo yaqaan waa human resource management oo loo yiraahdo waaxda shaqada iyo shaqaalaha gunaanadkii waxaan oran lahaa qofka waaxdan bartaa intuu doonayo inuu xafiiskii maamulo baran kara human resource intuu doonayo inuu meesha dhan maamulo baran kara human resource intuu doonayo inuu shaqaalaha oo dhan si fiican ugu shaqaysiyo kamanigu meel gaadho uu hami lahaado wuxuu baran karaa human resource hadduu doonayo inuu ka faa'iideeyo waxa la yiraahdaa resource-ka adduunyada jira khayraadka jira waxa ugu muhiimsan waa shaqo waxa weeye human-ka hadduu doonayo human-ka horumariyo wuxuu baran karaa human resource human resource waa aad muhiim ah waxaan doonayaa wadanka ku soo kobcino inuu ku soo kordhino waa fursado bannaan oo loo baahan kor loo qaado waa boosas bannaan oo dadkii ka shaqeyn lahaa la wali marka waxaan rajeynayaa waaxda insha Allah in lagu soo dhiirido dadkuna ay bartaan khibradeedana kor u qaadaan si ay u yareeyaan waxyaabo badan oo dhibaatooyin oo wadanka taag. Asante billahi tawfiq.